sidee waalidka loogu sheegaa ina imtixaanka iskuulka ama jaamacadda ku dhacday waliba iyagoo aan wax murugo ah la dareensiinayn waalidka? hooyo ayaa waxa ay gashay qolka gabadheeda wayna ka weysay, laakiin waxay aragtay warqad dul saaran sariirta korkeeda. warqadii ayay soo qaaday iyada oo naxsan, waxaana ku qornaa sida tan: hooyo macaan, waan ka xumahay inaan kuu sheego inaan la cararay wiil aan isjecelnahay, weliba aan isku fasalnahay. 3 bilood ayuu sirsir igu qabay, uurna waan u leeyahay. wuxuu ii sheegay inaan nolol farxad leh ku noolaan doono, sidoo kale waxa uu ii sheegay inaan weligay wada noolaan doono oo caruur badan wada dhali doono. anigana waan jeclahay caruurta. xashiish ayuu i baray, wuxuu igu yiri wax dhiba ma lahan. midda kale, hadda ka hor niman ayuu raacay, nin ayay soo wada dileen, laakiin waxa uu ii sheegay inuu booliisku uusan qaban oo uu ka cararay, laakiin 3 kale ee la socotay ee saaxiibadiis ahaa la qabtay. yaanan hilmaamine 2 bilood kadib markii uu i qabay ayuu waxa uu ii sheegay inuu AIDS qabo, laakiin daawo ayuu noo heli doonaa. hooyo, aniga 15 jir ayaan ahay, waana isdaryeeli doonaa. markaan caruur dhalana waan ku soo booqan doonaa. waa gabadhaadii aad jeclayd. fiiro gaar ah hooyo, waan kaftamayaa, qaanada dharka ayaan ku jiraa, laakiin waxaan rabay inaan kuu sheego inay jiraan nolosha wax ka daran in qofku uu imtixaan ku dhaco. laakiin hooyo, imtixaankii waan ku dhacay. hooyadii oo neeftu ka soo fuqday waxa ay tiri, imtixaanka weligaa ha baasine soo bax. mararka qaarkood dhibaatooyinka waa inaad u sharixi kartaa si reemagaalnimo ah oo aad walwalka dadka kaga yaraynayso. qof walba oo muuqaalkan uu soo gaaray waxaan ka codsanayaa in uu inoo like gareeyo. sidoo kale asxaabta muuqaalada aan halkan soo geliyo baryahan dadka halkan ku jira ma gaarayaan, marka TikTok baryahan wuu nagu dhagan yahay ee koobi linkiga noo taabta. mahadsanidin.